dalka Soomaaliya waxa wali ka sii soconaya dhibaatada isugu jirta dilka iyo handadaada lagu hayo saxafiyiinta ku guda jira howlahooda shaqo. Dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dibadda dalka ayaa si aad ah ula yaaban waxyeelada isdaba jooga ee mar waliba loo geysanayo saxafiyiinta ayaan dhamaad ka lahayn. Nairobi waxay ka mid tahay meelaha ay sida aadka ugu sugan yihiin saxafiyiinta ka soo barakacay gudaha dalka ee dhibaatooyinka kala duwan loogu soo geystay intii ay shaqadooda ku guda jireen. kulan ballaaran oo inta badan ay ka soo qayb galeen saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee Kenya uuna sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Americo oo loogu barordiiqayay saxafiyiintii dhawaantan lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu qabtay magaalada Nairobi. saxafiyiinta qurba joogta Nairobi ee Sajaas ayaa isku soo dubaraday kulankan loogu barordiiqayay Yusuf Ali Faray Maxamuud Cali Yare Bunayste iyo Cabdi Jeylani Marshaale iyo waliba guud ahaan saxafiyiintii lagu dilay gudaha dalka intii ay mashaqadu socotay. safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Americo oo goobjoog ka ahaa munaasabada ayaa cambaarayay dilalka lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed isagoona ugu tacsiyadeeyay saxafiyiintii dhawaantan Muqdisho lagu dilay bahda warbaahinta ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii ay ka baxeen. salaamaya aan u mahadcelinayaa wariyaasha qurba joogta ah oo soo qabanqaabiyay xafladan maanta soo nimid oo ah xaflad baroordiiq aanu baroordiiqeeno wariyaashii Soomaaliyeed ee sida gardarada ahaa lagu dilay wadanka Soomaaliya gudihiisa oo ay ugu dambeeyeen Yusuf Ali Cusmaan Maxamuud Cali Yare Bunayste iyo Cabdi Jeylani Marshaale gaar ahaan da waxay ka sheegay kulli waa wada garanayay Maxamuud Bunayste markuu baxay xamar Ilaahay ha u naxariistay safaaradda ugu yimid ugu macsalaameeyay oo ii sheegay inuu mataqaanaa soo laaban doono maalmo kadib hadduu la yiraahdo laakiin saad hadda wada aragteen tii Ilaahay ha u timid waxaana Ilaahay ugu barayaa iyaga iyo kontanka wariye kale oo kontanka kor u dhaafaya wariyaasha kale ah oo iyagana sida gardarada ah loogu dilay Soomaaliya gudaheeda in iyaga iyo eeladooda samir iimaan Ilaahay ka siiyo ayagana ay jannada Ilaahay ka waraabiyo. waan ognahay wariyaasha Soomaaliyeed ilaa iyo markii dagaalada sukay wadanka ka dhaceen inay si adag iyo si mataqaanaa la sheegi karin ee wadanka gudihiisa ugu shaqeynayeen ayadoo aan ognahay dhibka iyo meelaha dagaalka ka jiraan iyo ay ka shaqeeyaan wararka nooga soo tabiyaan markasta waxaan u qaadanaa grantis u qaadanaa oo aan markaan galno website-yada oo aan aqrinaa waxay soo tabiyaan waxaan laakiin aan ogsooneyn oo aanan markasta aanan la sheegin dhibka ku nool yihiin iyo dhibaatada ay ku soo tabiyaan marka iyagana waan ugu mahadcelinayaa hawsha ay hayaan ay qabteen. waxaan kaloo aan baaq ugu mataqaanaa u fidin lahaa wariyaasha qudba jooga inay midoobaan ay hal noqdaan haddii Ilaahay raado. anaga haddaan nahay safaaradda Soomaaliyeed waxaan hore u ballan qaadnay haddana ballan qaadayna inaan mar kasto wixii karaankeena ah aan heel iyo hooba ula taaganahay wariyaasha Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxa kasta ay u baahan yihiin inaan gacan ka siino. safaaraddu waa safaaradiina way iradu waa idin furan tahay markasta ay imaan kartaan waana idin soo dhaweynaynaa. annaga waxaan kari karno oo aan idin weydiin karno hay-adaha wax bixiya in ay idin siiyaan tababaro iyo mataqaanaa iskuulaad iyo waan idinku daalna insha Allah. dabcan dowladda kumeelgaarkana magaceedana ku hadlayo way ballan qaaday haddana waxay ballan qaadaysaa dowladda kumeelgaarka in ayagana ay sidii ay u ilaalinayaan dadka kale Soomaalida ah wariyaasha Soomaaliyeedna ay ilaaliyaan amnigooda ilaaliyaan ayagana ay gacan u qabtaan hadduu la yiraahdo. Cabdiqaadir Cumar Cabdulle iyo Maxamed Nuur Shariifka oo labaduba dhaawacyo kala duwan loogu soo geystay magaalada Muqdisho balse iminka Nairobi xaalada caafimaad ugu sugan ayana waxay ka hadlayaan dhibaatada saxaafadda lagu hayo. waxa la xusay in wariyaasha ugu badan ay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho oo lagu dilay waxaana hal ku dhigno ah haddii aan nahay wariyaasha magaalada Muqdisho markii ay dhacdo in wariye la dilo in maamulka jira uu yiraahdo waxa jira baaritaano lagu sameynayo inkastoo aan jeclaan lahaa safiirka inuu fadhiyo isla markaana gacan bira lagu soo qaban doono iyo in la weydiiyo su'aal ka xigta oo ah mid aad u xanuun badan oo ah shaqadiina ma sii wadi doontaan. waa labada su'aalood oo ugu dhibka badan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo la weydiiyo marka ay yimaadaan dilal. hase ahaatee waxa kaliya ee aan ku nagula beer qaboojiya ayaa waxay tahay wariyaha xaq dhowr adduunyada warka iyo wacalka hage iyo heesaas oo kale ayaa idaacadaha laga saaraa
markii wariyaha uu dhinto wax intaas ka badan oo la sameeyo ma aha ma jiraan marka laga reebo baroodiiq 2 maalin ah oo wariyaha xaqdhoor iyo Allah u naxariistay in baroodiiq loo sameeyo kan ku arkay saaxiibaday oo dhinac fadhiya oo ayagana kamid ah dadkii Muqdisho lagu soo dhaawacay oo haatan labadoodaba caafimaad qabaan marka laga reebo Cabduqaadir oo wax yar u dhiman caafimaadkiisa iyo aniga oo hadda caafimaadkayga taam yahay oo aan la hadlayo dadka soo qaban qaabiya ayaan u mahad celinayaa marka waxaan baaq u jeedinayaa dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo ka talisa Muqdisho waxaan ugu baaqayaa in goobaha ay ka taliso ay ka ilaaliso suxufiyiinta lagu dilayo sidoo kale maamulada Puntland Hargeysa ama Somaliland ayagana waxaan u dirayaa baaq noocaas oo kala Maxamed Cusmaan Niyog ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay difaacaan saxafiyiinta u dhimanaya danahooda xanuun weyn bay ku tahay guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasheena qurbo jooga ah in hal maalin ama maalin kaliya la dilo laba wariye oo wariyaasha Soomaaliyeed ah waliba mid kamid ah uu ahaa wariyaashii qurbo jooga ku ahaa wadankan Kenya cadiyadu waa farbadan yihiin aad u farbadan yihiin kuwana waa kuwa muuqda oo aan aragno oo ah dilal iyo xarig iyo hanjabaado laakiin waxa kale oo jira iyagan kuwaan muuqan ayadan waxay noqon doontaa mid sanad kasta ay wariyaasha Soomaaliyeed u baroordiiq doonaan waxaan alla ugu baryeynaa wariyaashaas Soomaaliyeed maanta aan u baroordiiqayno Yusuf Farey Buneste iyo Marshaale inuu naxariis janaahid ka waraabiyo aan u duceyno xilli kasta wali waxa lagu jiraa 10 dambe bisha barakeysan Ramadaan maalmo ciida soo socda waa xilliyada ay ducadu maqbuul tahay aan u duceyno walaalaheen wariyaasha ay dhintay meel kasta ha ku dhinteen wadanka Soomaaliya innagana aan midnimo sameeyno waa kuwan qaar kamid ah saxafiyiintii ka soo qayb galay madasha loogu baroordiiqayay wariyaashii dhawaantan lagu dilay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay taariikhda wariyaasha ay geeriyoodeen Yusuf Cali Cismaan Farey iyo Buneste waxay geeriyoodeen 12kii bishan aan ku jirno 11kii waxa geeriyooday Allah u naxariistay Mahad iyo Cali Iimaan marka maalintii sabtida ahayd iyadoo baroordiiqdii la dhigay ayaa maalintii ku xigtay Axad ahayd labadaas wariye ay dhinteen Yusuf Cali Cismaan Allah naxariistay wuxuu kamid ahaa wariyaasha rugcadaaga ah ee Soomaalida waxa laga yaabaa asxaab badan oo inta fadhiista in ay wariye ahaan u yaqaanaan laakiin wuxuu kamid ahaa macallimiintii saxafiyiinta Soomaalida soo saaray wixii ka dambeeyay burburkii oo aan dabcan anigana ku jiro waxyaabaha marka aan ku xasuusto waxa kamid ah dhiirigelinta faraha badan ee wariyaashu u sameyn jiray iyo sida dadka u baraarujin jiray Allah naxariisto dhamaan wariyaashii geeriyootay inta shaqadan lagu jirana dabcan waxay ahaan doontaa mid socota ilaa inta nabad laga helayo dalka Soomaaliya madaxda Soomaalida hadda ay tahay kuleeyeen magaaladii nabad ka jirta laakiin nin kasta intaas oo gaariyo technical lagu wardeena marka ilaahayna u barino wariyaashii geeriyoodo dhan inuu naxariisto janno ka waraabiyo asxaabtii ugu dambeysay Yusuf iyo Buneste kamid ahaayeen Mahmoud Cali Buneste waa saaxiibkana qaaliga oo maanta aan u dabaaldegayno iyo Yusuf Cali Farey ayaan ugu dambeeyay wariyaasheenii Soomaaliyeed gacanta ka xaqdaran ku dishay magaalada Muqdisho ilaa haatan aan baadagoobayno cidii ka dambeysay aan wali helin sidoo kale waxa jira akhyaar saaxiibayaal wariyaal kale oo ajnabi ah oo ayaguna lagu dilay dhulkeeni Soomaaliyeed isla markaana dishay gacan ka xaqdaran siyaabo kala duwan loo dilay ka waxaan leenahay dhamaantooda Ilaahu naxariisto gacan ka xaqdaran ayaan dishay ولينا وبادجوبنا إن نصاهل مالن أون دتك كدم بيجي أو دمبلياش أما دلياش ورياشة لكن هو يلوح أنا سيدرا إن دلك ورياشة يسيس عطو تربو حسام يسنا عن أوجيجن أو ويل ما نوربو واحد مدة دتك دلياش ورياشة يسنا مالكو حساب تمينين أنا هذا الكيك باللامين واحد جعلان لهذا واحد الشيخين إنه ودعين إنه بلينا أفر فاتح أو برنو برخمين تنت إن شاء الله إن هذا البدن هان مبحشو طبعا واحد بدن إن شيء مدون أيوب أنتي لما الله نحرستو إن قبر جودنا الله واسعيو وايو واحد لي كعنك حقدرن
dilkuna waa wax markasta taagan laakiin annaga markasta waxaana la habboon inaan alla subxaana wa tacaala laba arrimood uga barino dadkaasi geeriyooday oo ah in qabriga alla u waasiciyo iyo in dadkii ay ka geeriyoodeen annaga ka mid nahayna qalbigooda uu khayr ilaahay ugu bedelo ta kale ee aan hadalkayga dhihi doono waxay noqon doontaa dilkana lagu wado uu socon doonaa ilaa iyo intuu afkeenna uu furan yahay annaguna kolley waxay naga go-an inaanan afkeenna xiri doonin oo wax kastoo khaldan ay wakhtigay doontaha qaadataanu sheegi doonno maxaana la habboon oo markaasi waajibaadkana saaran ah waxay tahay laba arrimood in midnimadeenna aanu adkayno oo dadka tusaale ahaan markii geeri ay dhacdo waan ka naxnaa laakiin dabagal ma samayno in dadkii agoomaha ahaa ee ay ka tegeen marxuumiintii geeriyooday inaynu ka warhayno oo aynu har iyo habeen markaasi la joogno waayo hadday noolaan lahaayeen waynu garab taagnaan lahayn waa mid iyo midda labaad oo ah inaan innaka laftahaanteennu midnimadeenna aan xoojinno wixii alla gacantiisa ku jiro way ku jiraan laakiin aadamaha waxaa laga rabaa dadaal marka inaynu isbaraarujinno intayna dibadda joogta qurba joogga ah waa wariyaasha lagu laayay gudaha dalka Soomaaliya oo ay ugu dambeeyeen Yuusuf Marshaale iyo waliba asxaabtii kale ee ka horeysay oo guud ahaanba lagu laayay gudaha dalka Soomaaliya Muqdisho ha u badnaatee suxufiyiinta marba waxa moodaa markii ka dambeysay inay ka sii darayso hadda waxa la dhahaa dalka Soomaaliya rajuu leeyahay oo dawlad baa dhalatay baa la dhahaa dastuurkii waa la meel mariyo ku meel gaarkii waa laga gudbayaa agoos baa la soo afjarayaa baa la dhahaa habka ku meel gaarka ah waxa loo gudbiyaa dawlad loo dhan yahay ee Soomaaliyeed balse annaga wali rajo nama garan hadaan nahay suxufiyiinta Soomaaliya waxaa moodaa wadadii aanu sanado ka hor aanu joognay inaan dhinacii aan uga sii badano geerida iyo dilka ma ahane inaanan dhinacii kale ee rajada wanaagsan aanan wali gaarin ayaad moodaa annaga lama garanayo dhalinyartana laysa qof mar walba laba qof oo dhalinyar ayaan dilay balse annaga waa rajayn doonaa waqti maanta ka duwan inay imaan doonto oo la soo qabto cidii laysa suxufiyiinta inta dhaawac ilaahay caafimaad si walaalkeen Cabdiqaadir uu kamid yahay marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha qurba joogta Soomaaliyeed ee saxafiyiinta Ustaad New York iyo marti sharafta kale ee meeshan joogta Allah u naxariisto horta saaxiibkeen bunayste wuxuu ahaa nin bulshada ay jecel yihiin aad u wanaagsan iyadoo dadka dhan ay wada fiicnaayeen haddana bunayste waxa kale uu ka tirsanaa xaafadda Tawfiiq la yiraahdo dhalinyarada ugu firfircoon oo xitaa waxaan xusuustaa dhalinyarada Tawfiiq ka timaada markii inta ay yimaadaan dadka wuxuu kamid ahaa laf dhabarka oo ah inta badan isku xira Allah u naxariisto laakiin waxaan leeyahay Allah u naxariisto walaalaheen qaaliga ahaa ee aynu u barardeeqayno sawirada meeshan ku dhagan oo ay ugu dambeeyeen Yuusuf Faray iyo waliba Bunista jannada firdawsina Allah ka waraabiyo marka kale waxaan leeyahay saaxiibkii Cabdiqaadir Umar Cabdulle oo meeshan noo fadhiya in Ilaah uu caafiyo oo iyo Maxamed Shariifka oo ugu dambeeyeen dadkii saxafiyiinta ahaa iyana lagu dhaawacay magaalada Muqdisho saxafiyiin baan nahay oo ummadan war sugan iyo madadaalo suugaan iyo barasho siinaa siyaasadda qarsoon baan shacabka u sifeynaa masaluugna runta saxna waan ka sheegnaa saacadii la joogaba wixii soo siyaadaan siday tahay u tabinaa qaladka ma sameynee xaqiiqdan ku soo hanaa danihii sokeeyo Soomaalidan u noolnahay seef kuma shaqeyno sababna lagu dilo iyo cadow maan samaysanin su'aal weeye yaab leh maxaan sababsanayo naloo wada silcinayaa saaxiibadan jeclayn iyo saxafiyiintii wacnaa surka looga gooyay sunta loogu qooshaa si xun loogu dilayaa su'aashaas jawaab ma leh meelna kuma salayn karo ha yeeshee subxaankiyo allihii sareeyo sirta ay ka qarsoomin ayaan ka warsugaynaa surinkeena toosanna samir aan u yeelano waxa weeye aad baan uga xunnahay dhibaatada ku dhacday saxaafadda ururada saxaafaddana waa iska sheeganaa waxna uma qabanna saxaafadda runta markii laga hadlo saxaafaddu dhibaato badan bay qabtaa ilaahay waxaan ka baryayaa anigu waa duceeyaa uune ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado saxaafadda Soomaaliyeed intii dhimata Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah caafiyo kaliya waxaan idinku soo kordhinaa waxay tahay inaan inta hadda wariyaasha halkan joogto uga faa'iideysto kulley waxa marxaladda lagu sugaya waa wada ognahay wax naga qarsoon maaha
gaarsiiyay waxa kale oo rabaa inaan soo gaarsiiyo maalinta khamiista ah waxaad la soo xiriirtaan gudoomiyaha wariyaasha qurba joogga ah maalinta khamiista ah wariye kasta ee mandate haysta boorsidiisa soo xirto gudoomiyahana la soo xiriiro soo diyaargarow ururka qurba joogta Soomaaliyeed ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Sijaas waxay caalamka ugu baaqayaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka jira iyadoona sidoo kale ay ku baaqayaan in saxafiyiinta qurba joogta ay u midoobaan dhibaatooyinka lagu hayo Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi